mudane madaxweyne maalmihan soo dhaafnay waxa aad ka qayb qaadatay shirkii u horeeyay ee madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay ururka IGAD ee orax soo baxa qaaradda Afrika ururkaasi abuuritaankiisu ama hawshiisu hawlqabadnimadiisu inteebay adiga kugu muuqataa inay rajadeedu xaqiiqadii waxay ahayd ra'yi aad u wanaagsan in wadamada geeska Afrika ku yaala ay isu yimaadaan iyadoo danahoodana ay ka wada hadlaan haddana shirka noocaas oo kaleeta ahaa wuxuu waxtar ka noqonaya sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday muddooyinkan dambeeto Afrika khaasa geeska Afrika amaba qorax u dhaca Afrika haddii la eego oo abaaraha iyo nabaad guurka ah si fiican buna u dhacay waxaana shaki iiga jirin haddii si fiican loo wada shaqeeyo in ay dhibaatooyin badan oo dabiici ahaana faydi doonto isla markaasna si dadban ay uga qayb geli doonto is-afgaradka iyo wax wada qabsiga ama siyaasiga ah ama muxuu ahaa dhaqanka ah ama dhaqaalaha mudane madaxweyne muddadii aad joogtay dalka ama kulankaas uu socday waxaa kaloo aad kulanteen hogaamiyaha dalka Ethiopia Mengistu Haile Mariam maxay ahayd kulankaas ujeedadiisu halkeebay si gaarsiisanayeen wada hadalladaas arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia dhextiilay oo arrin duq ah oo boqolaal sano soo socotay dhibaato fara badanna u abuurtay shucuubta Ethiopia iyo Soomaaliya khasaaro badan oo la timid walla wixii faa'iido ahaa oo bini aadamku ay ku habooneed inuu iska helana gafsiisay aniga iyo madaxweynaha dalka Ethiopia wada hadalkanagii halka ayuu ka bilowday ilaa meesha fog kadibna heshiisku wuxuu ahaa in guddi la qabto guddigaasuna uu soo baaro sababaha dhibaatooyinkaas boqolaalka sano jiray asalkoodii sidii looga bixi lahaana ama daawo loogu heli lahaana laysla doono waxaan rajaynayaa inta labada dowladood madaxdoodu madaxda hadda madaxweyneyaalka keliya kuma wade madaxdu waa badan tahay ay u wada arkaan dhibaatadaas taagantaa daawo udoonkeeda isla markaasna labada shacbina ay u fahmaan dhibaatooyinka faraha badnaa oo ay soo mareen inay habboon tahay mar haddii laguna daalay ayna duqoobeen in xal loo helo waxaanse aada u rajaynayaa anoo huba
barbarka jamhuuriyadda soomaaliyeed niyasamiyo inay jirto xagga walaalahana etoobiyana inay u gartaan sidoo kaleeto dhibaatada faa'iido daradeeda iyo walaalnimadiiyo waxwada qabsiga faa'iidadooda sidoo kale iyaguna inuu gartaan anaa ku kalsoon chairman Mengistu Haile Mariam inuu kolleyba ay iga muuqatay niyasami ururka aasaaskiisa lagu sameeyey magaalada Jabuuti ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha dalalka Afrikada bari sidoo kale waxay nasiib u yeelatay in isla Jabuuti ay noqoto xaruntii ururkaasi waxaanu jeclaan lahayn jalla madaxweyne bal inaad faala gaaban naga siisid arrintaas iyada ururku sidoo u dhaqmi doono iyo heshiiskiisa in ururka IGAD maaha wax shalay uun badcamay sidaad ogtihiin dhowr sanood waa la meermeeriyay kolkii aan arrinta soo dhaxgalay waxaan nidhi bal arrintan waa kan dhibaatooyin badan la sheegayo biyo la'aan daaq la'aan xanuun biray bal haddaan la shiki qabo hareeryaha bal aad idinku isku daydaan annagoo hadda itaalkayga og oo itaalkaygu aanu iska weynin oo kolkaa waxaanu nidhi xen looma xoolo yaray waa inaad arrintaa fulisaan madaxweynayaasha kulkaan casuumad u dirnayna waxaan ugu mahadnaqayaa horta inay gebigooduba raalli ay ka noqdeen oo si wanaagsan u yimaadeen
si daacada si furfuran si farcoon oo hadalkaana meel la dhigay in meel dhigistaana kama ay dhigna in halkaa lagu joojiyo oo meeshuuna ha noqoto sida dhulka qaarkood meel lagu haasaawo oo inaan waxba ka soo bixin oo inuu waxba ka soconin annagu haddaanu jabuutina haddaynu wax ka soconin maanu wadi karna kolka magac bilaasha ma rabno in kolka waxaan filayaa in guddidii intoo la asaasay ka shaqaynaya xafiiskaas in waad ogtihiin ninka secretary general loo cayinay ninkaasoo asli ahaan ethoobiyaana in anigase ma qabo inuu ethoobiyaana ahaan ku shaqayn doono waxaan qabaa inuu nin fonctioneer ah oo igaadkaa shuqulkiisu uu yahay ahaada intaan hayna annagu saasaanu ku wadaynaa wixii naga dambeeyana saasay ku wadi doonaan waa inuu ahaadaa xor waa inuu isku dumiyaa oo isku duwaa wixii asluub laga doonay oo dhan wixii gargaaran siinayna annagu diyaar baan u nahay in madaxweynayaasha mantaqadaana waxaa la doonayaa inay meelay joogaanba hamiyad weyn saaraan in hamiyad bay leedahay inuu saxiixu bilaash noqdo lama rabo kolkaa hal la fuliyaan leeyahay igaad in danta dalka dadka weeyaan iyadoo oonan la eegin madaxweynuhu laga eegin oo loo eegaa hoosta xusbi ahaan shicib ahaan maxaa dhibaatadiisu ay tahay biyaha ama cudurka kolkaa waxay halkani ka dhigan tahay waxa weeyaan meesha lagaga duulo wixii degdega laguna xisaabiyo xisaab dheer kolkay galayso kolka labadaas la isgarab dhigo oo midba si u kala ron yihiin u kala horeeyaan haddana loo kala dejiyo waxaan ku soo dhaafayaa horta bal tiigaad sida mudane madaxweyne waxaa kaloo jabuuti sanadka nasiib u yeelatay inay ku kulmaan madaxweynayaasha labada dal Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo Itoobiya Mingista Xayla Maryam iyaga oo ka wada hadlay dhibaatada muddada dheer labadaas dal soo dhextaalay faal gaban arinta naga siin wallahi annagu haddaanu reer Jabuuti nahay in fan iyo farfarcoon kuma dareen waxaan soo odhan karaynaa salaam bay annaka nagaga waajibtaa labada madaxweyne si ay u dhammeeyaan mashkaladaha dhexdooda taalla oo shicib weynuhuna uga faa'iidaysto oo laga daayaa dadkani mid boqol lagu ooday in waanu ku teegaaraynaa annagu wixii kartada iyada ah in waxaanu filaynaana inay shicib ahaantood wadani ahaantood jaarnimadooda in annakuna madaqadii ku naallo dhibaataa naga soo gaaraysa in dhibaatooyinkaas la xallilo ayaanu jeclay waanu taageeraynaa waxay taalkayaan kama cabsoon karayno waa nagu balqasab ugu dambayntii mudane madaxweyne xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti iyaro hadal naga si Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti in dadka qaarkood haddii uu hoosta ka leeyahay cudur baa u dhaxeeya meesha cudur uma dhaxeeya caafimaad mooyaan in labada shacab dartoodna ilaaqaadka kuwaan maanta sayaxna un maahine waanu sii ballaadhinaynaa waxyooyin badan oonan dee maanta dabeecad baan u leeyahay horta wixii muuqdo oon sheega mooyaane waxa soo socda inaan siyaasi ahaan ku sheego oon idhaaho waxaasaan qaban doonaa waxa ilaahay ka sokeeya ma odhan karayo waxaasaan qaban doonaa waxaanse ku fakiraynaa in wax la qaban karayo kol haddii caafimaad la hayo oo kartidiina la hayo in la qaban karayo in si daacadana aan isugu soo dhawaynin doonna dadka faqad mid baa jirta yaanan runta lagana cabsoonin lagana xishoonin waroykii balee wada ma saacidi karayna annaga kii dhismo waddan baan doonayaa u gaajaysan waxaan odhanaynaa tafadal
hadday walaalkaya wasiyaad barre ay tahay xaggiisa waxaan odhanaynaa tafadal maxaa kugu jira cudur dhisma hadday noqoto waa tamaam ha sheega dhismadu say ku fiican tahayba in haddiiba u jeedo anigu naftaydan wuxuu doonaya oo dumis uma rabaa waa la dumin karaya halkaa bay ku dhammaan karaysaa taa murtideedu maxaa la yidhaahaa shacabkii soomaali kolkaasaa joogta hadda shacabka soomaali waxaa laga rabaa niyad sami annaka in shacabka jabuuti xukuumadda jabuuti madaxweynaheeda waxay u jeedinaysaa shacabka soomaaliyeed salaan kashkee laabta ka soo go'day inuu madaxweyne siyaad naga guddoomo oo tebiyana waanu rabnaa waa meesaash ku qaaliya hadduu sheegi waayana waa la is su'aali doonaa بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينها جمهورية الديمقراطية الصومالية محمد سياد بري يوفتك شرفت له ايه وهو قامني مدن مدحوينها جمهورية جيبوتي الحاج حسن قوليد ابتدون هي مروديس مدن الرئيس الوزراء مدن الرئيس البرلمان مدن ايا الوزير ده مدنياشا برلمانكا علماء الدين مروين يا مدنيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقو قاشان لزكريا شيخ إبراهيم وكترسن حوق الدلك جمهورية جيبوتي كنا هذا أفكي تليها سري حوق دلك جمهورية جيبوتي. يكي كوحدة حربي waxaan ugu soo wareegtay sharaf weyn oo diyaarinta barnaamijka soo dhaweynta martida qiimaha leh ee uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya محمد سياد بري. waxaan jecelahay madaxweynayaal inaan si kooban idinku soo dhaweeyo barnaamijkan ay soo diyaarisay kooxda xarbi ee xooga dalka u qaabilsan fidinta dhaqanka iyo hiddaha iyo baraarujinta ummadda. barnaamijku waxa uu ka kooban yahay heesa soo dhaweyn iyo kuwa wadani iskugu jira geeraaro waxa dhextaal u noqon doona sheeko iyo ciyaaro dhaqan iyo hidda. waxaan ku gabagabayn doonaa hees taariikha oo horay loo tiriyey. waxaan idiin rajaynaynaa inaad waddankani oo kiinii labaad aad kala tegi doontaan xasuus mahadha'a. waxaa kaloon idiin rajaynaynaa habeen wacan. ugu dambayn kooxda xarbi ee xoogga dalka Jamhuuriyadda Jabuuti waxay idin farayaan inaad ka gaadhsiisaan salaan gacaltooye ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba. waad mahadsantihiin. imakana waxaad arki doontaan kooxdii oo daadihinaysa barnaamijkii iyo madadaaladii ay idinku tala galeen. gacma furan qalbigoba walaalnima aan guri ku soo dhawo
gacma furan qalbi goba walaalnima guri ku soo gogol walaal ubax guduudan lagu garaye hog gudoon 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 garab israacay jacaylku gaxaday lagu garaye garab israacay jacaylku gaxaday lagu garaye hog gudoon 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 kani shirkii dhacay isiyada igaade garab iyo walaaliyo isku raacay gaashaan gabigeeda duunyada hawgu gacan sarreeya guga kani shirkii dhacay isiyada igaade garab iyo walaaliyo raacay gaashaan gabigeeda duunyada ha ka gacan sarreeya indheer garabka xaajada gudda hoosta taabtee hawlaha u gogol dhigay ha noolaada guule garadka xaajada gudda hoosta taabtee hawlaha u gogol dhigay ha noolaada guule gacalkii culoobe gantaaluu ka hurayeen gacalkii culoobe gantaaluu ka hurayeen gulwadeesiyaadiyo gurtidii la socotaa gucundhada dhex taaliyo godobtii daweeye gacalkii culoobe gantaaluu ka hurayeen gacalkii culoobe gantaaluu ka hurayeen gulwadeesiyaadiyo gurtidii la socotaa